السلام عليكم دلي رواد سلامي waxaan soo qaadanaynaa maanta qisadii ama lixda nin ee indhoolaha iyo maroodiga muddo qiyaastii waqtigan laga joogo 2500 oo sano ka hor waxaangaas waa sheekadan waxay ka dhacday xaggan bariga Hindiya iyo Nepal agagaarkayga dhulkaana waa kabaalka maroodiga la yiraahdo aad looga ciiseeyo magaalo halka ku taalay magaalooyinkii halka ku yaalay magaalo kamid ah waa maalinta waxa ka dhacay xaflad iyo dabaaldeg iyo waxaankaas wixii noo indhoolayaalo magaalada ku noolaa waa xaakimkii magaalada ka codsaday inuu halka maanta iyagana lagu cisuumo maroodiga la sheegayo balka balooy maqlaanuna ay soo bogtaan oo ay sidii markaa ay u soogaan karayaan ay u tagaan meesha xaakimkii uu ka ogolaaday raggii way tageen halkii maroodigi markii la keenay baa loo sii daayay lixdii nin midba maroodiga dhankii uu kaga aadanaa buu ka taabtay kii koowaad wuxuu yiri baalkan maroodiga la yiraahdo waa masweyn kii labaad wuxuu yiri baalkan maroodiga la yiraahdo waa toori wuli oo tooriyadii waaweynay aynu naqaanay ama kuwii hore aynu hore u garanaynay ka duwan kii saddexaad wuxuu yiri waa maraawaxad weyn oo tan boqorada lagu balfiyaa kii afraadna wuxuu yiri waa jirida dhirta oo kale maroodigu kii shanaadna wuxuu yiri warwad waalintiine maroodigu waa darbi buuri darbi ama gidaar saad u garanayso kii lixaadna wuxuu yiri wana waxaad ka sheekaynaysaa aan ma garanay baalka maroodiga la yiraahday waa sida xarig oo kale lixdii nin dadkiiba la yaabay doodoodiina way dheeraatay sida awgeed cashirka halkaan kala soo dhaxbaxayna wuxuu yahay horta lixdan ninba indhoolayaal bay ahaayeen waxba may arkayne lixduba xaqiiqay sheegeen iyo wixii ay taabteen baasha xaqiiqda la yiraahdo horta ninba dacal buu iska taagaayo ninba in yar buu ka ogaadaa kamaroodigu waa masweyn yiri xagga uu kaga soo aaday buu isagu ka qabtay oo gacankii dheeraaya ka labaad ee yiri maroodigu waa toorina foolkii weynaa buu qabsaday ka saddexaad ee yiri maroodigu waa maraawaxad weyn isaguna dhigtii weyneed buu qabsaday ka afraad ee yiri waa jirida dhirta oo kale lugtii buu isaguna kaga soo hagaagu qabsaday kan shanaad ee waa darbi yirina dhinacii weynaa buu kaga soo hagaagay walin baalkii iyagu ma arkayaane taabashay ku xaqiiqsanayaan kuna qiimeynayaan oo mid badhankii uu kaga soo hagaagay buu qabsaday kii lixaad ee yiri waa sida xarigana dibkii dambe ayuu isaguna ku soo hagaagay oo xaqaas kaga soo beego oo qabsaday marka lixdan ninba xaqiiqay sheegeen ma garateen halka iyada haddaba baasha xaqiiqda la yiraahdo horta ninba dacal buu ka taagan yahay oo ninba in buu ka yaqaanaa tusaale kale imika dhalinyarta Soomaaliyeed hadii aynu nuna inanka Muqdisho jooga Soomaalinimada sibuu arkaa ka Hargeysa joogana si gaar ah buu isaguna arkaayo sida ka Muqdisho jooga ka duwan ka Boorama joogana si gaar ah buu arkaayo isaguna u arkaayo labada horaba ka duwan ka deegaanka Soomaali galbeed jooga ee caasimadiisu jigjiga tahayna isaguna si gaar ah buu arkaa eeg Soomaalinimadii waa la wada aaminsan yahay waa la wada yaqiinsan yahay waa la isla wada qirsan yahay laakiin midba
aragti gaar uu ka qabaa haddaba aragtiyaha sidii la isku waafajin lahaa ولحدان إن أمرودي من بدن وكجوك سدي من بقى دي واحد مارك يعني أنتي أو كتابتي أو كحقيق سدي ويسوق سوقات حكمة بواحد هاي قفكو أنت أو ديجان كيس جوجو مبادئ دي أفكارته وأمن سي هنا وحتاجر عيا أو أركو ونحن ده أفكارك بحين وحكلو وعي أنو كردين أما أنو وح دبارين ونبرن ama aanu wax akhriin horta qodobka uu ku taagan yahay kama dhaqaaqayo qof qabiilkiibu si u arkaya mid kale qabyaaladiibu si u arkaya mid qabiilkii iyo qabyaaladiibu isku si u arkaya arada meela socotaan hadba fikirka iyo mabda'aada aaminsan tahay waxa lidiga ku ah ama qofka diidan ee ka soo horjeeda afkaarta adiga aad wadato in aad la dood furtaa loo baahan yahay waxa qofkana uu ku doodayay afkaartaada uu ku diidan yahay iyo ta isagoo aaminsan yahay baa la ogaadaa doodaha waa la isku miisaamaa qofkani waxa uu ku diidan yahay iyo waxa isagoo uu wato waxa aad ku diidan tahay isla gorfeeya marka uu isku dheeli tirmayaan oo adigu dhanka aad xaqiiqda ka taagan tahay iyo isagu dhanka uu xaqiiqda ka taagan yahay waa idin muuqanaysa imika wax adiga ku dhibaya oo adiga maahina cid kale oo ka damqanaysaaba aanay jirin baad aaminaysaa dadkii kale oo dhan waxaad u arkaysaa ama wadankii waxaad u arkaysaa afkaartaadi waa aaminsan tahay iyo aqligaaga dadku haddii ay wada lahaan lahaayeen ama ay doodaada iyo fikirkaad qabto qaadan lahaayeen inay wax waliba hagaagi lahaayeen qof kale wax buu ku arkayaa inaad wax xambalidi ku tahay adigu marka muhiimadu waa in wax la isla gorfeeyo xaqiiqdu waa sida aynu soo tilmaanay oo qofba dhan buu ka istaagsan yahay oo ka arkaya